siyaasiga weyn ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ku eedeeyay dowladda Turkiga in ay abaalmarin siisay sarkaal Muqdisho ku xasuuqay ciidamo Soomaaliyeed. qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku sheegay in ay tahay arrin la yaab leh in Turkiga oo ka cabanaya dilkii wariye Jamaal Khashoggi halka ay abaalmarin siiyeen ninkii Muqdisho ku xasuuqay ciidamada Soomaaliyeed isla markaana kabihiisa ku aasay. ninka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka hadlaya ee Turkiga abaalmarinta siisay ayaa ah taliyihii hore ee nabad sugidda gobolka Banaadir Saadaq John Salemi Takar oo ah madaxa ciidamada gaarka ah ee booliska Turkiga oo dhowaan Muqdisho booqday ayaa la kulmay saraakiisha booliska oo uu ka mid yahay Saadaq John wuxuuna siiyay abaalmarin aan la sii shaacin. Saadaq John iyo ciidamadii hubeysnaa ee Nisa ayaa dhowaan lagu daray ciidamada booliska. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa Saadaq John ku eedeeyay in uu qayb ka ahaa ciidamadii Nisa ee weeraray gurigiisa sanadii tagtay halkaasi oo lagu dilay qaar ka mid ah ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur.